waa qiso jacayl oo cajiib ah taasoo weliba dhacday dhabna ah afkiisana aan ka wariyay wiilkii ay ku dhacday inkastoo ii diiday magaciisa in uu sheego si uusan u gelin tuhun xagga reerkiisa ah laakiin sheekada inta badan xaqiiqadeeda si toos ayuu ugu sheegay wuuna ii ogolaaday meelaha ay ka dhacday dhan in aan si toos ah wada sheego ku soo dhawow isku soo noqdo wanaagsan oo xiiso leh janalka dadka soo fadlan follow soo dheh ama subscribe ma haysanin aan ku bilowna sheekada inkastoo wiilka magaciisa uu ii diiday laakiin waxaan ka dhigi doonaa Cabdiraxmaan wuxuu ahaa wiil ku dhashay magaalada Kismaayo sanadka markuu ahaa 1987 dhalashadiisa waxay la kootay burburkii dawladii Maxamed Siyaad Barre ugu dambeyn qax dheer kadib aabiis iyo hooyadiisna way kala tageen asagana aabiis ay hore u soo watay waxayna soo aadeen magaalada Muqdisho waxayna soo degeen deegaan weynaha Madiina gaar ahaan degmada Wadajir nasiib darro wiligiis moosan arkin hooyadiis iyo aabiis isla joogo ama isqaba oo reer dhaqanayo markuu aqliga yeeshto wuxuu ogaaday hooyadiis iyo aabiis inay kala tageen asagoo aad u yaraa isla markaana aabiis wuxuu ku fikiray xaas kale in uu yeesho guri kalena oo sameesto ugu dambeyn uu sameystay eedo ayuu u sameeyay wiilkii Cabdiraxmaan ahaa eedadiisana aad ay u soo korisay wayna jecleed wuxuuna ka mid ahaa ilmaha eeda ee dhashay oo kale iyada xaggeeda markii la fiiriyana eeda abaallay maysan ahayn dhanka kale hooyadiisana magaalada Kismaayo ayay deganeed reer ayay yeelatay caruur kalena waa ay dhashay mar alla markii uu baahdo hooyadiis inuu la hadlana dib weyn kumaysan ahayn asaga tarka ayay tagi jireen asaga aabiisa si uu la hadlo wiilkan hooyadiisa wana la hadal jiray saas ay isku wareysan jireen labadooda si kastay ahaataba waqtigu way isoo goray heer wuxuu gaaray Cabdiraxmaan ugu dambeyn u baahdo iskuul in la geeyo aabiis asaga way ku tashteen eediisna way ku raacday ugu dambeyn waxa la geeyay iskuul Djibouti kaasoo ku yaalay Buuluxuwe iskuulka markii laga qoray kadibna wuxuu noqday in iskuulkiisu ku fiicnaaday waxbarashadana aad xoog u saaro ardayda oo dhan way ay jeclaayeen kaftankiisa firfircoonidiisa xitaa macallimiinta ayaa ka heli jiray wax kasta asaga uu sameeynayo sanadba sanad waxbarashada way sii socotay heer ugu dambeyn waxa la gaaray xilligii form 4ka markaas kadibna waxa isku fasal noqdeen gabar lagu magacaabo Saabiriin sidoo uu sheegay maysan qurux badnayn laakiin kaftankeeda firfircoonideeda dhoolla cadeynteeda iyo aqligeeda faraha badan ee dadka soo jiidan jiray qof kasta hore ka arkana quruxdeeda soo ma jiidanayso mana ku qanacaayo laakiin qofkii si fiican u barto sheekadeeda iyo dhoolla cadeynteeda kaftankeeda iyo qosolkeeda arko kama hari karo markaas wuxuu jecel yahay inuu u sheekeeyo oo kaliya Cabdiraxmaan dhankiisana gabadha waa ay soo jiidatay ugu dambeyn markii muddo bil ah iskuulka isla dhiganayeen kaftankeeda iyo qosolkeedana sheekadeeda iyo aqligeeda inta badan uu fahmay markii hore wala kaftami jiray wuuna foodan jiray laakiin markaan jecel ayaa galay dibnihiisa ma kala furi karo markasta oo iyada arkana naxtin ayaa fiiraha go'ayso hadal iska daayay indhaxta uma dhameystiri karo waa la yaab ninkii kaftami jiray shalay faraxsana la ciyaari jiray asaga ma baahanba ayada qodheedana tacajib ayay ku noqotay ninkan waxyaabaha ku dhacay asaga markaas wuxuu ku fikirayay hadiiba oo la hadlaayo jecelka inuu u sheegto habeenkii ma seexan jirin markuu gurigooda imaado asaga iyo aabigiisna way isku rafaasanaan jireen sababtoo adiga markaas wuxuu arki jiray wiilkan oo rafanayo dhinacba dhinac isku gidinayo maxaa ku dhacay Cabdiraxmaan ma xanuunsantahay ii sheeg aabbo asaga wuxuu dhihi jiray may aabba ma xanuunsanay aniga waan fiicanahay habeenkii dhan wuxuu ka fikirayay maxaa dhahdaa gabadhaasi maxaa u sheegtaa maxaa u lahadlaadahay uta kulli waxa dhahdaa waan ku jeclahay ma ka cabsanaysaa ma dhahdid hadalada badan ayuu sidahay maskaxdiisa kuna sheekaysanay laakiin mar alla markii la gaaro subaxii ayna ka soo horbaxdo afkii baa juuqda gabay naxtin baa fiiraha go'aysa idid fara badan ayaa ka imaanayo hadal iska daayay xitaa ma fiirin karo yaabi ama kaag muruga ayaa la soo darastay waqtigii uu isgurayaa xilli la sii gaarayaa asaga wuxuu sheegayaa malahan habeenkiina ma hurdo maalintiina ma hadli karo aabiisu la yaabay wuxuu dhahay takhtar ma ku geeyaa war ma xanuunsantahay ii sheeg xagee laga hayaa waa adigan sii gurmaaye waxna waad cuntaaye wax bal ii sheeg asaga markaas wuxuu leeyahay waan fiicanahay laakiin habeenkii wuxuu ku fikiraa inuu hadallo diyaarsado kuna dhaha gabadhaasi maanta wuxuu diyaarsaday erayadii salaanta ahaa ee uu ku soo jiidan lahaa marka hore igahano salaan sare saadaalinaysa guul suulinaysa xumaan sadarka iyo laabta saxbada kugu sidaaye samaan iyo gudoon Falastiin si kastaba ha ahaatee markaan wuxuu go'aansaday suuxi markuu gabadhaasi arko waliba ay ka soo horbaxdo inuu eradaas ku dhihi doono asagoo geesnimo iska baaraayo laakiin nasiib darro suuxi ay iskuulka meesan imaanin wayba xanuunsaneed
markuu iskuulka ka waayay kadibna murugo ayaa la soo darastay. talow xaggee aaday maanta maxaa ku dhacay? dadka ma weydiin karo ka xishoonaya sababta wuxuu isleeyahay dadka haddii aad weydiiso waxay ku dhihi doonaan farsiin maxaa ka rabtaa, jacaylkaaga waa la ogaan doonaa, talow maxaad samaysaa? ugu dambeyn geesnimo ayuu iska baaray. walaasha iskuulka ayay dhiganaysay ma uusan weydiinin, laakiin wiil isku fiicnaayeen ayadan darsi ay ahaayeen ayuu weydiiyey isagoo dhahayo saaxiib maanta farsiin ma arkine xagee ka baxday aawe? niyo qofta way xanuunsan tahay walaasheedaana ii sheegtay. haa ma xanuunsan tahay, allaha caafiyo. asagoo is dabaarinayo ayuu sidaas ku hadlay, laakiin murugo ayaa haysay. uurkan uu ku gubanayay xanuunkan akaala dabaalmiya. farsiin sacdan muxuu ka doonay? markaan jacayl ku sheegay kadib muxuu iskaga imaan waayay? farsiin oo kale ma xanuun noola qabtaa sidee wax u wadaa? in cabaar kaliis ayaa murmayay, kii saaxiibkiisa taa waa la yaabay. saaxiib maxaa kugu dhacay? may waxba iguma dhicin, waa iska caadi. ugu dambeyn way kala tageen, asagana meel ayuu iska fadhiistay asagoo weliba gocasho iyo murugo maskaxdiisa ay ka buuxday. wuxuuba ka shalaynayay sababta magaceeda uu u weydiiyey saaxiibkiisa una dhahay qoftii maanta aaway. asagana waxay la noqotay dadka oo dhan inay dhahayaan heblaaya jeceshahay soo maahan, maanta waad weydiinaysaay waad raadinaysaay. sababta horaa waxaa loo yidhi farta imasha bogto ayaa is og, laakiin cid weydiinaysay iyo cid dan ka lahayd iyo cid ogad xitaa masan jirin. dadka hadal ay dhibo iyo heblaayaba ma daayaan waa waxyaaba asiga uu ku fikirayay, laakiin cid heblaaya dhahaysay meesha maba aysan joogin. waa maalintii ugu horreysay hadal isku toosiyo oo weliba soo qortay salaan qurux badan aadna u macaan, laakiin tacadiga jira wuxuu yahay meesan bay imaanin maanta way xanuunsatay. horaa waxaa loo yidhi laf dhuux laya dhagax layslama helo. ugu dambeyn maanta arrintiisii meesha ayay ku fashilantay. asigoo murugsan muraal jabsan ayuu iska laabtay gurigiisina iska aaday. xiisaha gabadha uu qabana wuu ku sii kordhay maadaama maanta uusan arkin asaga. jacaylka ma u sheegan doonaa talow gabadhaas ma ka aqbali doontaa? aabihiis siduu ku guursaday gabadhan waxyaabo fara badan oo sheekada ka dhiman la soco qeybaha kale si aad u dhammaystirto. mahadsanid.